السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقال أيا لغا بقيا عاوة إنو مركا لدحمر مريكان كييران تليها قود عيدان كدالك باكستان أسيم النور أيا مانتا وحا أولا كل ما مدحدا أقصر رئيس دالكاسي وحانكوها يا قضبادي يقومهم سنة كلان كي دحمري أسيم النير يصيدو كالي محمد بغر غالباف gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku aaniyana waxa kamida xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in yar kadib ay soo saari doonaan war weyn oo ku saabsan xaaladda Iran iyo Mareykanka maxay tahay warka la fiilanayo waxaan ku hayaa warbixin cajiib oo arinta ku saabsan iyadoo maqal iyo muuqaal qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku aaniyana waxa kamida dunida ayaa wajahaysa cabsidii ugu halista badnayd caalamka saynis yahanada ayaa waxa ay sheegayaan sanadka 2050 bani aadamka inuu wajahi doono in la waayo caalamka inuu qatar ugu jiro bani aadamka oo dhan yaa la wareegaya shaqayaab la yaan idin haya iyadoo maqalay muuqaala qodobka ugu dambeeyana Xisbullah ayaa war weyn soo saartay oo ku saabsan dagaalka bariga dhexe oo laga baqayo mar kale inuu dib u bilowdo Xisbullah waxa ay ku jirtaa dagaal adag oo ay kula jirto militariga Israa'iil oo maanta mar kale qarax weyn ka geystay gudaha Lebanon Xisbullah maxay ka tiri xaaladda hadda ka dhacaysa Mareykan iyo Iran taliyaha guud ciidanka dalka Pakistan Asib Munir ayaa waxa uu maanta booqasho ku tagay dalka Pakistan waxa uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Mohammed Baghar Ghalibaf taliyaha guud ciidanka Pakistan Asib Munir oo la kulmay Mohammed waxa uu sheegay waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay waxa dhahaya taliyaha guud ciidanka Pakistan in Iran maanta ay hoggaankeeda gacanta ku hayaan dad aqli badan oo leh aragti fog wuxuu sidoo kale yiri aniga iyo adigaba waxaan nahay askar u adeegaya dalalkeena askartuna si cad ayay wax u sheegaan hadalkooduna waa toos wareeg iyo mugdi kuma jiro inta kadib Ghalibaf wuxuu sheegay in ciidamada Iran ay dib isu dhiseen intii lagu jiray xabad joojinta waxa uu leeyahay Mohammed Baghar Ghalibaf anaga ma seexanin oo ma sugin wada hadallada kaliya laakiin waa isa sii diyaarinay isagoo inta ku daray hadii Trump uu sameeyo tallaabo nacasnimo ah oo uu dagaalka dib u bilaabo Iran waxay bixin doontaa jawaab ka adag midii hore xanuun badanna ay ka dareemi doonaan taas oo macnaheedu ay tahay in Iran ay dirayso fariin adag oo dagaalka laga baqayo caawa ilaa iyo bari Mareykankana uu ku hanjabayo inuu dib u bilowdo in Iran ay jawaab u diyaarsatay maxaa marka hadda cabsidu ay tahay dalalka Sacuudiga Qatar bariga dhaxoo dhan caawa waxa lagu jiraa heegan nidaamyadii difaaca ayaa la diyaarsaday Iran mar kale waxay u dhiibtay Pakistan fariintana waxay ku leedahay ma aqbalayno inaynu ka hadalno uranium-keena waxa kaliya aan ogolnahay in lagala hadlo in cunaqabataynta la qaado Hormuzna aan ka wada hadalno taa macnaheedu waxa ay tahay Iran waxay taagan tahay booskii hore Mareykanka Donald Trump xitaa xafladda wiilkiisii inuu ka qayb galo ayuu baaji oo wiilkiisii oo guursanaya Trump inuu ka qayb galo ayuu xitaa baaji wax kale iska day aqalka cadaad degdeg loogu soo noqday Mareykanka caawa waxa lagu jiraa wada hadalkii ugu dambeeyay xaaladdu meel adag bay maraysaa Iranna waxa ay taagan tahay dagaal walba iyo tallaabo walba Mareykan qaada diyaar baana Iraniyiinta waxa ay sheegeen in dhinacoodu ay diyaar u yihiin wada hadal walba oo nabad lagu gaarayo laakiin ay agolayn wada hadal walba oo lagu qasbayo Iran inay soo dhiibto cid walba oo ku riyoonayso Iran ay isdhiibto riyadaasi mar hore ayaan aasnay taas waa go'aanka Iran xaq u yaalo qodobka xiga aan ku keenay dhinaca Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay war culus oo maanta soo saaray Marco Rubio warbaahinta ayaa su'aalo weydiinayay waxa wax laga weydiiyay xaaladda hadda ka taagan bariga dhexe iyo go'aanka Mareykanka uu ka qaadan karo jawaabaha Iran ka imaanayo in Iran ay diiday in mowqifkeeda ay wax ka bedesho Marco Rubio hadal kooban oo muujinaya in Mareykanka ay markani quus gaareen ayuu sheegay waxa uu yiri hadda idin ma hayo news there is no news now hadda war ma jiro laakiin war weyn baad maqli doontaan wax weyn baad dhacaya buu yiri maantay ama maalmaha soo socdo waxa hadda la isku raacsan yahay adduunyada oo dhan
in arrintii Maraykanka Iran ay quus gaartay Pakistanna ay haddu marayso rajadii ugu dambeysay iyo gabagabadii oo ay ka soo gacan taagay ilaa Italy guud dalka Pakistan oo Iran tago balaan isla dhageysano hadalka Marco Rubio ee ku saabsan waxa dhici kara maanta ilaa iyo maalmaha soo socda. Maybe news later today. I don't have news for you at this very moment, but there might be some news a little later today. There may not be. I hope there will be, but I'm not sure yet. The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the President's points consistently. And his preference is always to deal with it in a diplomatic way. The President's preference is always to solve problems such as these through a negotiated diplomatic solution. That's what we're working on right now. But this problem will be solved, as the President's made clear one way or the other. We hope it's done through the diplomatic route. That's what we're working on, and perhaps there'll be something to talk about on that topic while I'm here on this visit at some point. Marco Rubio waxa uu leeyahay problemkan waa in la xaliyaa maanta ama maalmaha soo socda warar waad maqli doontaan horumar badan waa la gaaray buu dhahay wax badan baa hore loo socday wada hadalada laakiin madaxweynaha waxa uu rabaa arrintan in la xaliyo one way or another ama in nabad lagu xaliyo ama in dagaal lagu xaliyo madaxweynuhu waxa uu doonayaa buu leeyahay Donald Trump buu ka wadaa in nabad lagu xaliyo laakiin waxa go'an buu yiri in arrintan la xaliyo maxay rabaan marka wuxuu leeyahay Maraykanku waxa rabnaa uranium-ka Iran in la soo qaado Iran draftiga ugu dambeeyay gudbisay ay Pakistan u dhiibtay waxay tahay inaysan uranium-keeda ka hadlaynin iska dhaaf inay dhiibtay xitaa kama hadlaynay leeyahay horta laga qaado xayiraada Hormuz Iran maamulkeeda loo daayo wax kale aan ka wada hadalna markaa kadib xanibaadana laga qaadayo Hormuz markaan ka hadalna kadib ayaa uranium laga hadlaa horta maba ka hadlaynay dhanaada macnaheedu waxa ay tahay dalalka Sacuudiga iyo Qatar iyo kuwa kale ayaa hadda iyo Turkiga waxay hadda ka wada hadlayaan in xal degdeg la gaaro ka hor intaan talaabo military la qaadin laakiin marka la eego mowqifka ugu dambeeyay Iran ay taagan tahay waa kaliya Maraykanka inuu aqligiis dib u soo celiyo sida Iran sheegayso Iran waxay istaagtay wax laga yaabaya su'aal shaki weyn baa hadda dhashay Iran wax ku saabsan militariga iyo droneska iyo diyaaradaha iyo ciidanka wax ka weyn bay isku halaynaysaa lama og waxay isku halaynayso awood qarsoon baa jirtay leeyihiin dadka arrimahan aad ku falanqeeyo oo Iran isku adkeynayso caawa marka ilaa bari subax isbedel inuu imaado waa qasab baa leeyahay habeen dambe saacadan oo kale xaaladda Iran wajiba yeelanaysaa bariga waayo mowqifka Iran uu si adkaanaya maalin ka dambayso Maraykanka dabacaad badan iyo aqbalaad badan bay sameeyeen laakiin iyaguna Netanyahu baa dabada ka taagan ama gadaal ka taagan oo leh waxba lama aqbalayo ilaa Iran uranium-keeda laga qaado Iran intee la geenaa Iran waa diidan tahay marka waa la ismari la'yahay waayahay wixii ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaa intaynu u galin Hezbollah oo caaw iyana soo hadashay wali Lubnaan dagaal baa ka socdo xuutiga mowqifkoodu wuu cad yahay iyana warbixin baan idinkaga diyaariyay Hezbollahna way soo hadashay jawaabta Hezbollah oo Al Jazeera iyo warbaahinta kala qortay ismariwaaga Maraykanka Israel iyo dagaalka Maraykanka Iran iyo dagaalka Lubnaan ka socda ayaan eegi doonaa laakiin aan ka hormariyo Piers Morgan wariyaha weyn arrimaha caalamka aadka uga hadlo barnaamijkii u dambeeyay ee uu qabto waxa uu uga hadlay isbeddelka AI-da waa artificial intelligence-ga aqliga macmalka aqliga gacan ku samayska adduunyada qatartu ku yahay AI-da hadda adduunku waxa la marayaa xilli qof adig ku eg inta la sameeyo bini'aadam lama abuuri karo laakiin waxaan ka wada wax adoo kala inta la sameeyo codkaaga loo yeelaya socodkaaga loo yeelaya dadku markay daawanayaan adigoo qudbaynaya ku malaynaya mararka qaar hadda waxaad kala garanaysaa waxa kala garan weynaysaa waxyaabaha qaar aad daawanaysa inay run yihiin inay been yihiin qof mas'uula ama qof culimo ama qof maartay heer sare gaaray oo waxa arkaysa wax aadan ka malaysanin ku hadlayo markaasay dadka qaar rumaysanayaan waxa lagu sameeyay Sheekh Sudayska xaramka lagu sameeyay madaxweynayaal adduunyada jooga lagu sameeyay macnaha AI meesha ugu dambeysay ba maraysa maxaa dhacay markii Piers Morgan barnaamijka u dambeeyay uu qabtay wuxuu uga hadlay isbeddelka AI-da adduunyada ay ku wado laakiin waxay dhaheen haddii adduunyada maanta ay marayso AI-da in dadkii muuqaal laga sameeyo qofkii inuu isaga yahay loo ekaysiyo lagama duubin video ma ahan
لكن سيستم كاسمية AI ذا سميسي artificial intelligence magacaagii macluumaadkaagii waxa ay sawiradaada la gilgilna dhag video waxay soo sameynaysaa hadii 2026 saas la maraya 2050 bani aadamka ee ay intee kala marayaan baa doodi dhacday waxay noqotay bani aadamka hadaasan AI dan la xakameyn 2050 bani aadamka adduunyada waa laga weynaa bal ila daaw barnaamij 2050 are we still here or will it all be over? It's hard to predict because capability is not the same as actual action. So we'll create systems capable of wiping us out, but will they decide to keep us around? Will they decide to take time and accumulate resources, have more backups? Maybe they'll find some reason to keep us around. That is something we cannot predict about a smarter agent. But one thing is for certain, if we create superintelligence, we will not be the ones deciding what's going to happen to us. That's one of the most terrifying answers I've had to a question probably of my entire career. Thank you very much indeed, Dr. Jan Polsky, for scaring the hell out of me. Joshua Barr, quickly, your response. waayo wariyaha waxa uu yiri Piers Morgan tani waa jawaabtii ugu cabsida badnayd ee weligii aan maqlo scientistayaashan waxa la weydiiyay 2050 in bani aadamka sidan ay sii ahaan doonaan bani aadamka sii jiri doona wuxuu lama qiyaasi kara buu dhahay laakiin sida ay hadda wax ku socdaan AI sideeda wax ku waxa iman doonta inay gaarto AI heer ay anaga dhan wiping us out adduunka inaga saari karto ana ilaahay baan dili kara ilaahay ba laakiin sababay in noqon karta AI da inay dhibaato bani aadamka soo gaarto bani aadamka adduunyada uu ku qiimo beelo oo laga baabiyo adduunyada laga saaro bani aadamka birahan iyo mishiinadan waxaan aqligan macmalka la sameeynayo qatar buu ku yahay 2050 bani aadamka halis weyn buu wajahaya 10 sano ka hor saan ma hin adduunka hadda waa laga been abuuri kara waa lagu dhibaatay heer hadda waxa la marayaa la sameeyo ay mishiin laga sameeyay oo dagaalamayo ciidan dagaalamayo ee ayda laga sameeyay wadamada qaar Shiinaha iyo way sameysteen waxaan ku soo baari kartaa heerkaas la maraa adduunyada heer waxa la marayaa ee ayda caalamka sidii rabtay ay u qasto 2050 kana way ka sii darantahay waayahay saaxiibada qiimiga loo intaan qodobkaas u gudbin adduunyada waxa aad loo hadalhayaa oo dunida la isla marmaraya intaan qodobka ugu dambeeya gaarin ee ku saabsan Xisbullah iyo jawaabteeda Donald Trump waxa laga sameeyay muuqaal waxa la soo bandhigay muuqaalka ugu yaabka badnaa oo madaxweyne Donald Trump la soo bandhigay oo baraha bulshada qabsaday heer waxa la kaaray Donald Trump waxa la soo helay dibi u eg sac ama dibi waxa aad dhahdaba anu ma kala garanayo sac iyo dibi u eg la soo helay Donald Trump waxa la leeyahay waxa ma aha AI ma ahan kaniya dibi Donald Trump u eg Donald Trump ya sagaba baraha bulshada social media ay qabsatay waxay leeyihiin baalkaan Donald Trump u eg waa 700 kilogram albino buffalo way waxa la Bangladesh laga helay marka Donald Trump uu inta taagan waayay leeyihiin macnaha baalkaas marka si fiican u fiiriso ma aha wax oo AI loo sameeyay ma waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa abuuray bani aadam xayawaan lagu misaali karo laakiin hadara baalkan sidoo uu eegyahay Bangladesh imtixaan way sidoo uu eegyahay marka fiirisid Donald Trump asaga baba kala garan kartid waqti cadaanka madooga daayar ku misaali jiray waqti hadda waxa loo helay dikii Donald Trump waxa loo helay macnaha dibi u eg waxay leeyihiin bahalkan iyo Donald Trump la isku fiiriyo aniga waa fiiriyo oo ku wareer waxaan waa sii baaray marka waa AI hadda aan ka hadlayno kalamay soo sameeyeen may AI ma waa Ilaahay baba abuuray waa dibi la abuuray hadda fiirisid dawladka bini aadamka wax uga duwaya dhaqankiisa dhaqan bini aadam waxba ma khaldama sideedaba waxba si ah ma garan karo ma rabtaa inaad quraanka si sax u barato oo aad naftaada kor u qaado markas Khaliil Al-Husari ayaa ku haya fursad dahabi ah oo aad ku baran karto hab online maadooyinka la dhigto waxa kamid ah quraanka tajwiid iyo xifdi hingaad sax ah ducooyin muhiim ah duruus islaami ah oo noloshaada iftiiminaysa waxa jooga barayaal khibrad dheer u leh macallimiin aqoon sare leh dulqaad badan oo si fudud kuugu sharxaya casharada si aad u fahanto una horumariso akhriskaaga iyo barashada diintaada maxaad ka faa'iidaysaa akhris quraan oo sax ah faham diini ah oo qoto dheer ah anshax iyo akhlaaq wanaagsan wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiid taleefanada shaashada kaaga muuqda ha seegin fursadan qiimaha leh isdiiwaangeli maanta
oo bilow safarkaaga aqooneed. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena xisbullah ugu dambeyn waa ay soo jawaabtay sida Al Jazeera ay qorayso. Al Jazeera English iyo dhammaan warbaahinta waxa ay aad u falanqeynayaan jawaab adag oo ay xisbullah sheegtay inay ka heshay Iran. waxa ay tiri Iran waxay noo ballan qaadeen wada hadal kasta iyo heshiis kasta oo dhaco inaysan Iran aqbali doonin heshiis ay xisbullah ku jirin marnaba aysan garabkooda ka bixi doonin. markii hore hadii Iran lagu eedeyn jiray inay xisbullah garab siiso xisbullah garab taagan tahay Iran ma qiran jirin mana diidi jirin. laakiin markan waxa banaanka soo baxday in Iran sida Mareykanka Israa'iil uu soo la gambanaynin inuu taageero Iran iyadana waxay leedahay xisbullah anaga taageer. hadii xisbullah la dagaalo Iran waa la dagaalay. waxyaabii hadda u dambeeyay dadka qaar waxay leeyihiin maxay Iran xisbullah Lubnaan maanta qaraxa ka dhacay maalin kasta waa la gubaa waa la weeraraa waa la duqeeyaa maxay u garab istaagi weysay Iran si aan caadi ahayn bay xisbullah u garab istaagay. drones ka Israa'iil ciidankeeda kaarayaal looga gubay ciidan looga dilay waxa dhiibta baa la leeyahay Iran. droneska Iran ay ku garaaci jirtay Israa'iil ayaa hadda ku dhacay Israa'iil. Iran way ku dhufan jirtaa wali lagu garaacay Israa'iil waxaana isticmaalaya xisbullah. taa macnaheedu waxa ay tahay wali Iran inay garab taagan tahay xisbullah. xuutigan hore waxay u ballan qaadeen hadii dagaalka caawa ama bari ama isbuucan uu soo noqdo in ay si aan gabasho lahayn u garab istaagayaan Iran dagaalkuna ay galayaan baabu mandamna la wada xiraya guud ahaan hadda dalal gaar iyo Israa'iil iyo ka xiraya Soomaal baabu mandamna waa la xiraya iyadoo hore Hormuusna ay u xiran tahay. taas macnaheedu waxa ay tahay waxa dhici doona cadaadiska ugu weynaa ee dhaca dagaalkan wuxuu noqon doonaa mid faraha la isugu gubto dagaal ba. marka saacadaha soo socota xaaladda aad bay u adag tahay xisbullahna waxa ay hoosta ka xariiqtay inay hadda haysato ballanqaad iyo isku haleyn buuxdo oo ay Iran u ballan qaaday inay garabkooda yihiin oo ay marnaba garabkooda ka bixi doonin. waa yahay saaxiibada qiimiga leh xiisada bariga dhexe oo sii adkaanaysa xaaladdu sii kulaanayso wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa. tan inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushina haato. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.